xafiiska telefishanka qaranka Soomaaliyeed qaybtiisa magaalada Xuddur ayaa isku howlay inuu isu keeno dhalinyarada aqoonyahanada degmada tan Xuddur si markaasi ay uga qayb qaataan ama fariimo ay u gaarsiiyaan bulshada oo ka aadan ka hortagga cudurka Covid19 maxamed eeda maasanta jaaniskan ama fursadan neenseedi inuu ku hadalna SNTV ama raadiyaha dawladda kulli si loo ogyahay cudurka leerow coronavirus ama Covid19 waa cudur eed halasan ah waa cudur oo dhibaato geeka bulshada ka haayo hadii oo deegaanka ay hadii oo caalamka ay taba cudur oo eed halasan ah oo saf marre dhibaato badan sheenahayo cudurka si loo ogyahay cudur oo daawo male koortag maaye maadaama daawo lahayna koortag leey bulshada mad ka sameeyaan hadii la ay sheeganahay kawaaniyanahay in sameeyaan walaa koortag in sameeyaan ilaa ma leeyahay cudurka ma leeyahay koortag leey daawo leey ma leeyahay koortag wali mana ku feeyay daawinta ku feeyay maadaama cudurkan virus sabaw oo daawo lahayna bulshada kawaaniyanahay inay waxyaabaha caafimaadka sheegaw idaacadda sheegaw oo hormuud sheegas fariimo inay sadhaban qaadaan salon koortaga cudurkan Covid19 oo farabaanka hay bulshada caalamka gaar ahaan Soomaali hay marka bulshada kawaaniyahay inay lan fududaysan oo aan arna walaan wala isku dheegan arna cudur jarmi ay cudur halaag sameeyahay ay cudur oo dhibaato badan sheerin ay dhibaato maarna dhinaca bulshada sheeni dhaqaale sheeni dhinaca dhaqaale ku halay markas sameeyo waladi marka la fududaysanay cudurkan halasu daawo ma la koortag maay walaay bahda afad sheegasoonay qaaday waanida maasantiin maxamed marka hore waad maasantiin adiga dhamaan teamka SNTV maxamed sida aad ogtahay mas'aayadu ognahay Covid19 waa cudur dilaa ah waa cudur aan ilaahay hadda wax daawo lahayn soo kale aan lahayn wax ka hortag talaal ah ama waxa loo yaqaano immune prevention aan lahayn oo talaal soo jirin waa cudur si fudud ku faafa oo u baahan in si taxaddar zaid ah mataxaddar dheer laga muujiyo si looga hortago cudurkaasi saf marka ah ee dunida halakay Covid19 waxa ku gudbaa qaab si fudud qaab zaid u fudud oo aan la maleysan karin ku gudbaa gacan qaadka joogtada ah gacan qaadka aan loo baahnayn ee aan muhiimka ahayn waxa kale ku gudbaa in soo dhawaado oo xilliyada salaadaha ama xilliyada kulmada badan in dadka isku soo dhawaadaan ama soo dugaarsadaan marka waa cudur u baahan in loo yeesho aqoon dheeri ah ama aad looga taxadiro si loo yareeyo faafistiisa ama looga hortagaba marka waxaan soo jeedin lahaa in bulshada Soomaaliyeed kala fogaadaan ama ay yareeyaan gacan qaadka ama ay iska daayaan oo salaanta isku salaamo kaliya salaanta assalaamu calaykum lana joojiyo salaanta gacan qaadka aan loo baahnayn daruuriga ahayn soo kale la sameeyo waxa loo yaqaan spacing ama social distancing oo ah in la kala fogaado abdi waa dhalinyarada aqoonyahanada degmada Yeetin walaysan barnaamijka qayb qaadadahay tan bulshada reer Xuddur fariinta ugu weyn aan gudbinayo waxa weeyaan in gacan qaadka la joojiyo oo salaanta aanan gacan qaadka iska joojiyo soo kale la sameeyo waxa loo yaqaan distancing ama la kala fogaado ay bulshada kala fogaato masaafo 1 mitir ah waxaan kala soo jeedin lahaa ciddii isku aragtay calaamadaha Covid19 aan nafaqatooga xumadda qufaca isku aragtay iyadana la xiriirto goobaha caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka si xaaladda looga socdo oo loo maareeyo mesela looga warhayo halka ay ku dambeynayso haddii ay qofka qabtana laga baaro haddii aysan qabina ay iskarantiisho isku hayso gurigeeda mahadsanid maxamed gooni iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed sida ay ugu hoolan yihiin in bulshada Soomaaliyeed laga wacyigeliyo cudurkan oo ah mid dhaqaale iyo mid saameyn dhaqaale iyo mid bulshada u leh oo guud ahaan dunida caalamka saameeyay Soomaaliya maanta waxa ay taagan tahay heerkii ay talaabadii ugu muhiimsaneed qaadi lahayd innaga hadaynu nahay dhalinta Soomaaliyeed iyo hadaynu nahay gaar ahaan bulshada reer Xuddur waxa ina faran inaan bulshadeena wacyigelin joogto ah la marno in bulshaduna iyaduna ay qaadato talada sida loogu sheegayo tusaale ahaan cudurkan in fariintiisa lagu sheego way fududahay laakiin in fariinta aad si dhaqan ah aad u bedesho oo practical u qaadato waxa ay noqonaysaa mid aad iyo aad u adag maanta waxa la inooga baahan yahay Soomaaliya inaan fariimaha la inoo sheegayo dhaqan u bedelo aan kala fogaano farxalka joogtayno oo aan bulshada wacyigelinta dhameystiran aan inagoo qofna inoo dirin aan inagu isku holno si voluntary ah haddii aan tusaale ahaan la kulanno qof cudurkaas looga shakisan yahay inaan takoorno sakoorida ugu habboon la xiriirno wasaaradda iyo xubnaha loogu talagalay in loo sheego ama ay takooraan
haddii qofka uu caafimaad qabo waxa uu haystaa fursad uu ku badbaadin karo naftiisa iyo nafta ummadda Soomaaliyeed haddii aad maanta cudurkaas oon kugu dhicin aad naftaada ilaaliso waxaad badbaadisay naftaada nafta qoyskaada iyo nafta guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo aad ku talaali lahayd hadhow haddii lacala cudurkaas kugu dhaco waxaan kula talinayaa qof walba oo Soomaaliyeed inuu naftiisana ka badbaadiyo cudurkan nafta ummadda Soomaaliyeedna uu ka badbaadiyo maanta inaan isku helino muhiim bay inoo tahay iyagoo qof walba uu ku helinayo inuu fariintan run u qaato wacyigelintuna waa waxa adiga aad sameynaysid oo tusaale aad dadka ugu noqonaysid wabillahi tawfiiq aqoonyahanada degmada Xuddur ayaa hadda xilligan u istaagay in ay ka qayb qaataan wacyigelinta ka hortagga cudurka Covid19 oo ay ka wacyigelinayaan bulshada ku dhaqan magaalada tan Xuddur maxamed xasan abdiraxmaan raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Xuddur